السلام عليكم guys, welcome back to my channel. ولكن ودني بحر ودن له soo dhawaada. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkayga subscribe saar. Haddii aad hore u saartani mahadsanid. Magacaygu waa wadani baxar. Halka diga daawanaysidna waa CM Vlogs and Films. Maanta waxaa inoo wadaa qiso yar ee ku dhacday gawro laashiina ama qiso aad u xanuun badan ee ku dhacday gawro laashiina oo joogto dalka Switzerland. Waxay qisada qaabka ay u dhacday sidee u dhacday inta buu inoo soo sheegtay waa inoo soo dirtay waxaan rabaa inaan idin soo gudbiyo sheekadaas ayadoo si macnaheedu waxay ka soo qaadatay inta muhiimka ah macnaheedu sheekada way dheer tahay dabcan laakiin waxay ka soo qaadatay inta muhiimka ah waxayna tiri waxaan u baahanahay walaalayaal talo anigu waxaan rabaa inaan sii talo haddii Ilaahay ugu talo galo way ku caafimaadaysa ama waxba u tari doontaa insha Allah haddii adiga taladiina soo siisaan taladiina fiicnaatana waxba u tari doontaa balse waxa fiican marba qofka dhibaataysan in la siiyo talo fiican okay waxaan ugu gudgalayaa sheekada iyo qaabka u dhacday ayaan rabaa inaan ka sheekeeyo sidee u soo qortay ayaan rabaa inaan idinku ku soo gudbiyo okay sheekada waxay u dhacday ay tiri sidan waxaan isbarnay tiri weel anakoo isla school dhiganay macni hal school ayaan wada dhiga jirnay arday ayaan ahaa asagan arday ayuu ahaa kadib waan isfahanay muddo ayaan wada soconay wuxuuna ahaa wiilka wiilasha macni furfuran kaftanka badan oo farxadda badan ayuu ahaa walaalkay ayaa jiray oo wiil da'yar asagana iskuulkeen maan iskuul kale ayuu dhigi jiray ayay tiri waa daris macni adiga xaafad ayaan ka wada tirsaneen xaafad oo macni guriga iskuma ee dhaweyn ayay tiri balse xaafad ayaan ka wada tirsaneen hal xaafad ayaan wada degneen walaalkay asagana aqoon ayay isku lahaayeen waxay ahaayeen dhalinyarada ee marba isla dheela meelaha qaar isla taga ayay ahaayeen markii iskuulka ama fasax la leeyahay okay kadib waxay tiri wiilkaas anina walaalkay is yaqaanaan uma maleejin ayay tiri si gooni ayuu aniga ila sheekay asagana uma in iskeema kan yaqaan ayay tiri walaalkay inuu yahay kadib waxay tiri aniga asaga waa isfahanay muddo markaa wada soconaaday 3 bilood aan wada soconay wuxuu marba isku dayin jiray inuu iga qaado sawiraan inuu iga qaato ayuu jeclaa jiray waqti walba wuxuu dhijir sawir soo dir sawir markaa uu dir wuxuu dhijir sawirka noocan fiican sawir adigu qaaban soo dir baa maxaa adigu saane adigu tintaada fiidanta maxaan ma xishoonaysa waa isla adigu waxyaabo oo sirsirasha ah ayuu ilahi jiray mar walba aan mar walba waxaan dhijir iga daa ayaan dhijiri balse al ultimo wuxuu iga qaaday sawir ah anigoo wato garan igu dhagan ayay tiri iyo booma gaaban igu dhagan oo xaafad anigoo jooga ayaan iska soo sawiray kadib waan ku soo aaminay sababtoo kalsooni ayaan ku qabay asagana kalsooni ayuu ku qabay markaas kadib waan aaminay ayay tiri sawirkii ayaan u diray kadib sawirkan kan u diray muddo adiga 2 isbuuc kadib waxa dhacday ayay tiri wiilkii iyo walaalkii ayaa waxay ku wada kulmeen fasaxa iskuulka magaalada ama xaafadda kadib ay ku wada kaftama ayuu wuxuu ku yiri aniga waxaan haystaa xabad shidan iskuulka nala dhigata kadib xabadda shidneed wuxuu yiri xabadda shidan sawirkeeda iyadoo waxay soo dirtay dhar ku dhigan wadato xabad iska kala kacsan oo kala arag waa ayuu yiri kadib wiilkani waa walaalkay aqoon uma laha soma kadib wuxuu ku yiri walaalkay itus sawirka aad sheegaysid kadib sawirka ayuu soo bixi wuu u tusay wiilkii walaalkii wuu arkay kadib sawirka ayuu la istaagay wiilkii wuu mashquul wuxuu ku mashquulay markii sawirka uu tusay waa ka saaxib kun nuurs ayuu yiri kadibna wuxuu ku mashquulay adiga meelaha inuu fiiriyo xogaa inuu socodka ay socdeen kadib wiilkii sawirka ayuu wuxuu ku dirsaday mobilkiisa ayuu ku diray qaybta WhatsApp-ka ayuu ka dirsaday kadib sawirka ayuu ka daleeday kadibna wuxuu ka daleeday ayadana qaybta gudaha ayuu galay sawirka ayuu ka daleeday kadib wiilka ayuu taleefanka si markaas uu yiri sawirka maxay iga daleeday wuxuu yiri saaxib sawirka gacanta iga dhacday kadib waa iska qabsamay saacayeen oo kaas uu raali galiyay saaxibiga la noqolaa gacanta iga dhacday waxbu adiga siba isku maaweleen kadib waa isfahmeen wuxuu dhimana ayada ka soo qaadanaya saaxib dhimana inuu yiri hadda xilisa waxba ma gabar adiga ku jaban tahay waad ka soo tuura kartaa ayuu yiri sawirka wiilkii walaalkii ah soo xanaaqsan guriga maad gabadha ayuu ku buuqay ku canaantay ku qeyliyay kadib wuxuu yiri sawirka balfeeri aad u dirtay wiilkaas canaanti kadib ayuu wuxuu itusay ayay tiri sawirkii kadib wuxuu igu yiri bal fiiri sawirkaaga sidan ayaa rag oo dhan loo tusayaa maxay tahay ayuu yiri sawirkan qaaban aad u dirtay wiilka markaas ayay waxay tiri aboowe maxaa way qalqashay gabadhi waa in xad markii arag sawirka sida ay noo sheegtay waxay tiri kadib waxaan ku hadlo markaan garawaa ayuu yiri sawirka waan ka dileeday balse mar dambe qof ha aaminin haana u dirin qof sawirkaaga kadib waxay tiri oo masaan burag u tusaa sharaftaada san ayuu mar walba ugu ciyaaraa qof walba ugu faanaa sawirkaaga
anina waan ka dileeday hadda wuxuu damcaya inuu kaa soo doonto ama mid labaad uu kaa soo codsado ha u dirin sawirkaaga hana u sheeg inaan walaalanahnay howshaada wado amaanna iska daa aniguna sawirkan waan daleedayaa walaashii marwalba is ilaali ayuu yidhi kadib wiilka walaalkii asigoo murugaysan ayuu iga tagay kadib aniga waxaan go'aansaday inaan ka go'o balse naftii ayaa diidan oo waxay leedahay ha ka go'in way u baahan tahay naftii laakiinse kama go'i karo ayay tiri waana u baahanahay taleefankii ayuu soo wacayaa inaan ka qabta marabo marna waxaa isleeyahay ka qabo waxa ay haysata waxay tahay ninka sidaas ii galay misna nafteeda aan ka go'i karin ayaan rabaa inaan macnihi ma ka haraa oo qofkaasi ammaan ma siiya ayay tiri mise waan iskala socdaayo sawiraanteedaan u diidaa oo tale siiya ayay tiri walaalayaal waa iga codsi ayay tiri walaashiin oo dhibaataysan aan ahay waana jeclahay ayay tiri wuuna i xumayso ayuu ii galay balse asiga ma ogo inaan aniga ogahay aniga laakiinse umaana sheegin laakiinse ma aqaan ayay tiri waxaan sameeyo waxaan iga codsanaya tiri talo fiican ay siisaan aniga ahaanteeda markaan usoo jeesto taladeeda sheekada halkaas maadaama ay ku eg tahay walaasheeda fartuun ani ahaanteeda talada aan ku siinaa waxay tahay qofka sidaas u dhaqmaya weligaaga ha ka dhiganin wehel ka fogow wax walbo aad uga fogaa kartid uga fogow waayo uma qalmo mustaqbalkaaga qof sidaas kuu galayna xaq uma laha inaad nolol la wadaagtid maadaama uu qaladkaas galay qof walba qalad ayuu galaa adiga qaladka aad gashay wuxuu ahaa sawirkaagu qaaban ayaad u dirtay liajli wuxuu kuga abaalmariyay inuu tuso qof ama qof nin rag inuu tuso nin kale inuu tuso ayuu kuga abaalguday adiguna abaalkiisa waa inaad ka dhigtaa inaad tustid inaad adiga ka maarmi kartid maadaama uu qaladkaas galane ha u sheegin kaliya waxaad u goysaa sidii qof adduunka aad ugu neceb tahay oo kale waxay abaalmarintiisu tahay inaad goysid asaga macalaa xasuustiisa inaad tirtirtid ayuu xaq u leeyahay qofkaasi waxaan taladaasi waa tala ani xaggayga ka socoto ka raadso qof kale ka daydaya gayaan kale waayo uma qalmo noloshaada inuu kaas ku sii biiro ama ku sii ficnaado waa ani taladeeda waxaan u daynayaa talada shacab weynaha ama daawadayaasha ku xiran CM Vlogs and Films ayaguna waxay ku dhahaan ayaan arkaynaa insha Allah halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa fiidiyowgayga haddii aad fiidiyowga ka heshay like saar haddii aad ka helin dislike waa walaakiin wadani baxroodin leh meel walba joogtaan ku noolaada farxad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu